wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu soo galay supermarket inta uu ku guda jiray suuqa ama meesha uu wax ka gadanayay ayaa waxa uu dareemay inay haweeney daba socotay ilaa markii uu soo galay meesha uu alaabta ka gadanayay dabadeed waxa uu ku yiri hooyo macaan ma waxbaan kugu caawiyaa waxa ay tiri maya wiilkaygiiyow waxaad u egtahay wiilkaygi oo dhintay xitaa markii aad dhahday hooyo naxariis baa i gashay wiilkii waa uu ku yara qiirooday hadalka haweeneyda waxaana uu ku jawaabay waa sunnada nolosha hooyo maamadii waxa ay ka codsatay wiilka inuu mar labaad hooyo dhaho wuu ka aqbalay codsigeedii wuuna dhahay kadib maamadii albaabka markii ay tagtay way tiri wiilkaygiiyow suu yiri hooyo way ilmaysay haddana markii ay baxday ayuu 3 jeer si cod dheer ay ku dheehan tahay ku yiri hooyo hooyo maamadii iyada oo qiiraysan bay isaga baxday supermarketkii wiilkii markii uu tagay xisaabiyihii supermarketka waxa uu ku yiri alaabtaada oo dhan waa $100 halka alaabta hooyada qaadatana qiimaheedu uu yahay $350 markaas buu wiilkii yaabay oo yiri yaa waayo hooyada aad sheegayso xisaabiyihii oo dhool cadeyn wajigiisa ka muuqato ayaa dhahay waa hooyadii aad ku qiilinaysay oo aad hooyo lahayd marka hooyo ayaa tiri wiilkayga ayaa lacagta alaabta aan qaatay bixinaya ee bixi lacagta cajiib qiyaanooyinka qaar waa ay kala xanuun badan yihiin intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee mahadsanid